bismillaahi raxmaani raxiim. aniga magacaygu waa Jamaal Xiiray Warsame. meesha aan ka hadlahayaana waa gobolada dhexe Galgaduud, magaalada Caabudaaq. wiilkii aan dhalay oo yaraanka ii ahaa oo iga maqan 3 sano oo aan wax bartay oo quraanka xafiday oo jaamici ahaa baa habeen madow layga qaaday. anigoo hooyo Soomaaliyeed ah oo hooyo Soomaaliyeed oo dhan u hadlaaya. annagu caruurteeni waa weynay. madaxweynihii hore iyo madaxweynaha dambe Xasan Sheekh Maxamuud oo kursiga hadda fuulay iyo Farmaajo oo waa keenayaa la dhihi jiray Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. yaan ka rabnaa inay meel wax noogu sheegaan. wiilasheenna loo soo celi hooyo murugaysan baana meel wuxuu doono ma naqa qalbigaana kacs wax ma cun ma fadhino way iska taagana kuwii dhintay waa laga samar balse kuwii kaan nool oo halka ka bax oo wadadii la qaatiyay u jeed oo aadan haysan oo aan lagula hadalsiinin dhibteeda ay leedahay. war hooyo Soomaaliyeed baan nahay. war anagu waxaan lahayn qaranka u dhimanayaan. war awal dhabar adeeg baan ugu jiray. war waxaan lahayn baraad la keeni doorashada la keeni dawladda keeni waa dawladda waa kala boodbood. madaxweynaha cusub oo Xasan Sheekh Maxamuud waana maqlaysaa. waxaan ka rabnaa adugu anagu Farmaajo waa ka kacay kursiga. hadduu ka kacayna awalna waxba nooma keenin. adiga waadaan ku codsanayna ilaahay baan codsanayna dawladdan codsanayna shacabka codsanayna askartaan codsanayna codkarkaan codsanayna. walaalayaal annagu hooyo murugaysan baan nahay. anigu wiilka aan dhalay Abdikariin Cabdulqaadir gaandhaaba la yiraahdaa 19 gudu jiri fiidkii baa layga dhaqaaji ma dirsan iskar uma qoran meel allaaliya meel caaw igu sheegayiin raggaas ma naqa waa badan yahay ma yar. Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed oo dhan u hadlay hooyo Soomaaliyeed oo ka hadlay ayaa haddana hooyo walba ayadu gurigeeda ka murugaysan tahay iyo cunugeedii oo ka muuqda. dawladda waxaan ka codsanaynaa ilmahaas in la ku soo celiyo maadaama aan ka video hadii naloo soo duubo waa iska qanci lahayn. meel u doona ma naqaan meel aan aadna ma naqaan darbiyada ka boodeen baa la leeyahay afar baa hesha la leeyahay. wariyaa dawladda wariyaa dadweynaha wariyaa madaxtooyada jooga wariyaa guriga madaxtooyada jooga kursiga madaxweynaha fuulay waa ka codsanaynaa in aad wiilashaas aad nagu soo celiso. allaali ciidina maqlaysana ha noo sheer garayso codkaas naloo sheer garay qof allaali qofkii maqlow waa idin baryaynaa noo sheer galay dibad iyo daaqsi uu gaaro. ana ku soo celiyo ilmahaas wixii dhinta waa dhinteen. waxa iigu dambeysay xiriir aan la sameeyo 7 bilood ayaa hadda laga joogaa. dawladda uu joogo ayaa xiriiris iyo rag ku soo galay runta markii la rabo 7 bilood yaan codkiis nuxuus hayay ka bacdina waan waayay guri baaba markaas i galay. haddana mana fariisto mana harsado mana hoydo waa iga hor muuqda. dawladdan ka codsanayna waa wiilal Soomaaliyeed. markii ugu dambeysay wuxuu ugu yiri waxaan joognaa meesha la yiraahdo Asmara magaalada caasimada Asmara oo tababarka ayaan joognaa. tababarkiina waa naloo xiray yiraahdeen. dawladdu wixii ay soo bixiso ayaan sugaynaa sidaas uu yiri. dawladda baan ka war sugaynaa buu ugu yiri. marka ka bacdi ma dhinteen ma noolyihiin hadda waxana la ku yiri oo ilaa xalay nagu soo siyaaday darbigay ka boodeen oo waa baabeen ayaa nagu soo siyaaday. sidaas aan hadan jooga nagu maanta u sii kacay ilaa xalay u kacay. annagu madaxweynaha kii marba madaxweynaha ninka kursiga fuula ayaa noo ah. marka waa ku codsanaynaa Xasan Sheekh Maxamuud maanta kursiga adiga sidan maqlayna ku fadhiya. annagu hooyooyin macaamiye ka yimid baan nahay. idaacadda naf baa iska soo aadnay wasoo dalaanay baadiya macaakane magaalada ma joogno ma hadlina qaan waa murugo. waxaan hadda aan sheegayno dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ilmahaas inaad noo keentaa
inaan nagu soo ilaa kii dhinta waa dhintay laakiin wixii nool wiilasha Soomaaliyeed in naloo soo qaado 3 sano ayuu uga maqan yahay aniga 3 sano buu maqan yihiin intanaas isla fadhida caruur baan la ka qaaday meel loo dhigano ma naqaan 20 jir weeye waxa la yiraahdaa Cabdinaasir Aadan Yuusuf xamar baa laga qaaday wiligiis ilama soo hadlin caruuraha waxa la yiraahdaa halkaas loo dhigay wadamadaas la sheegayaa nolol Eritrea waxna la soo hadlay ma naarag waxna loo sheegay ma naarag dawladda sharafta leh meel kasta ha joogeen waxaan ka codsanaynaa ilmahaas in nolol sheego meeshay joogaan inay nool yihiin inay dhinteen baan ka rabnaa aniga waxa iga maqan Mahad Cabdi Cabdullaahi oo 18 sano jira oo nin reer baadiye ahaa oo aan wax barasho intaas heer ka gaaray ilaa hadda meel ku sugan yahay ma naqaan waxa weeyaan mar ma nayuus ka helnay nayuuskiina waa naga baxay oo wax dambe oo noo soo siyaado ma aanan arag waxa weeye dawlad tababar askar loo qaaday oo aan dadkooda la hadalsiinayn oo aan dadkooda la socodsiinayn oo ilmihii murugo ku riday oo hooyooyinkii murugo ku riday oo aabbayaashii murugo ku riday oo muslimiintii dhammaa waxa weeyaan qaranqam laga dhigay dawladdan ka hor wax sheegay wax arkay midna ma arag waxa weeyaan waan murugaysanahay aniga madigu igu ahaa kaligiis ba ilaahay baa weyn oo waaxida baan dugsanayay haddana waxa weeyaan ogaal igama tagin ogaal la'aan buu iga tagay waxa weeyaan labada madaxweyne oo sharafta leh oo midna xilka ka degay midna xilka fuulay waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya waa la mid kuwa tabarka loo qaaday dawladdu ka mid ah oo kale laakiin madaxweynayaasha waxaan ka codsanaynaa wiilashii qabar degdeg ah nooga yimid meeshii ay joogeen waxana la yiri waa jabsadeen way baabeen madaxweynaha cusub aan ka doonaynaa xasan sheekh maxamed waxaan ka doonaynaa wiilashii keenitaanka ilaahay baa waqti soo qaaday ilaahay baa ayaga laftiga waqtigaas aan dooni karnaa bari karnaa amar baa ku dhici kara xilligaas laakiin waxaan ka doonaynaa hadal degdeg oo nolol iyo geeri labada mid aan ku kala ogaano inay nala soo hadal siiyaan wiilashayda magacooda waxa la dhahaa Maxamed Ahmed Atoosh midna waxa la dhahaa Sayid Maxamed Atoosh labada wiil baa iga maqan meel allaay meel aan ku sheego ma aqaan soonkiisii kala warkooda igu dambeysay waxa weeye 3 sano iga maqan yihiin ma arag waxa weeye aad baan u murugaysanahay hooyo Soomaaliyeed baanahay wiilasha oo naga maqan hooyo walba ka maqan waxaan ka rabnaa haweenaha kale hadda la doortay kullool dawladda waxaan ka codsanaynaa wiilashaas inay sida ugu degdeg badan noola saadalsiiyaan ama noo keenaan baan aad uga doonaynaa waxay ii sheegeen wixii hooyo waa fiicannahay aad baan u ladanahay tababarka waa noo dhammaaday waana iska joognaa dawladdan ka warsugaynaa bay dhaheen iga maqan wiil waxaa la dhahaa Axmed Faarax Warsame waxa weeye 3 sano iga maqan yahay waligiis lama hadlinin maqal iyo maxaan ku dhahay hadal midna kama hayo waxa weeye wuxuu arday buu ahaa waa la iga qaaday ilaa xilliga meel ku sugan yahay war kama hayo waxaan codsanayaa oo madaxweynaha cusub hadda la doortay xasan sheekh maxamuud ka codsanaynaa inuu wiilashaas meel noogu soo sheego in loo keeno madaxda Soomaaliya aan ku codsanaynaa aqalka Soomaaliya aan ku codsanaynaa waxa weeye wiilashaas meel noogu soo sheegaan oo ama nala soo hadalsiin ama noo keenaan baan ku codsanaynaa wiilashaas waa rabnaa waan u baahanahay waa kacaanay waa walwalnay hooyooyin baan nahay waxana macabna mana harsano waxa weeyaan intaas sanaan walbahaar iyo walaac ku jirnay ilmahaasna ilaa intaasna wax wara kama hayno meel aan ku sheegay meel aan hadda igu tasanahay midna ma aqaan wiilka hadduu ka dhinto waad ka sanirtaa hadduu ku joogan hadda waa ilmahaagi laakiin ilmaasuu kuugu jooga wax baranaysa u sanaysay subax laga qaatay la meel ku jira xilliga jirna aadan aqoonin waad garanaysaa dhibta iyo dhibaatada uu leeyahay